نبت بردنا حسن علي خيري قحوتيغي مغنغليا دونكا هذا النبدا madaxii hay'adda gargaarka dawladda Norway ganacsadihii shidaalka macallinkii qurba joogga ahaa ra'iisul wasaarihii ugu xilhaynta dheeraa xafiiska wasiirka koowaad ee Soomaaliya saaxiibkii siyaasadeed ee madaxweynaha talada haya anigoo og intaas aftahankii hadalka heli ogaa anigoo og in wixii maanta golaha shacabka ka dhacay ay ahaayeen siyaasiga mucaaraday xukunkii uu 3 sano geed fadhiga u ahaa hadda waa musharax u ordayay jagada madaxweynaha Soomaaliya warbixintan kooban waxay warbaahinta Samakulan isu dul taagaysaa caqabadaha iyo fursadaha ku gidaaman ololihiisa doorashada aan ku horeyno 10 qodob oo caqabado yeedayma oo uu wajahayo musharax Xasan Cali Khayre waxaa barmadow ku noqday ololihiisa mustaqbalkiisa siyaasadeedba inuu noqday mas'uulkii ugu horeeyay oo soo qabta mid ka mid ah xilalka dalka ugu sareeya isla markaana qirtay inuu lahaa mas'uuliyadda dilka ku dhawaad 10 askari oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka iyo weerar lagu dhaawacay siyaasi hab dimuqraadiyadda ilbaxnimo ku jirta ku mucaaraday xukuumadii hoggaankeeda ahaa musharax Khayre waa siyaasi cadaawad badan ku dhex abuurtay siyaasadda ganacsiga iyo xiriirka diblomaasiyadda waa ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ku dhiiraday inuu joojiyo qandaraasyo heeseen ganacsato Soomaaliya kuna wareejiyo ajaanib waxa uu qandaraasyo ganacsi u saxiixay wasiirro xildhibaano iyo siyaasiyiin kale oo kula saaxiibay qaarkoodna hadda way kala furteen Khayre ganacsatadii Muqdisho ka qaad qandaraasyadii siyaasiyiintii uu kula saaxiibayna maanta ma hayo waxa uu qabqablayaal ku tilmaamay siyaasiyiin muddo dheer ku soo jiray saaxadda siyaasadda waxaana uu duray isaga oo ku raali gelinaya hoggaankii nabadii nolol ee uu ka mid ka ahaa sharafta aan raadinayno kama raadinayno qabqablayaal waxaan ka raadinaynaa shacabka Soomaaliyeed oo maadsantii laakiin nasiib darro musharax Khayre waxa uu maanta ololihiisa siyaasadeed ka dhex baadigoobaya isla siyaasiyiintii uu muddo 3 sano ka hor u aqoonsaday qabqablayaal uusan kala tashan doonin maslaxadda Soomaaliya waxa uu duulaan ku qaaday golihii shacabka iyadoo xilka hab aan sharci ahayn ay uga tuureen xildhibaano golihiisii xukuumadda ka tirsanaa iyo mudanayaal ku siyaasadaha gudoomiyihii golaha sharci dejinta ee xilligaas Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari Xasan Cali Khayre si toos ah uma cadeynin mowqifkiisa ku aadan muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya waana arin uusan ka hadli doonin xitaa haddii uu madaxweyne ka noqdo Soomaaliya sababta ugu weyn waa dawladda Norway oo uu dhalasho ka haysto ku lug leh shidaalka laga raadinayo Kenya iyo Soomaaliya weli muusan cadeynin xiriirka ka dhaxeeya isaga iyo dawladda Kenya oo lagu tuhumayo inay tahay mid ka mid ah dalalka taageeraya musharax Khayre waana mid ka mid ah sababaha dawladda madaxweyne Farmaajo u sii fogeynaysa xiriirka Kenya ay la leedahay Soomaaliya Khayre ma wareejinin dhammaan wixii hanti dawladeed ahaa oo uu hayay intii uu ra'iisul wasaaraha ka ahaa dalka waxaa ka mid ah gaadiidka rasaasta celiya hub badan oo ay lahayd dawladda Soomaaliya iyo dhaqaale aan la cayumin inta uu la ekaa oo ku baxay saxiixiisa intii uu xafiiska ra'iisul wasaaraha joogay ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre waxaa lagu eedeeyay inuu darajooyin ciidan iyo mushaar kordhin u sameeyay saraakiil ku heebaha oo qaarkood hadda ku ilaaliya magaalada Muqdisho waa siyaasi saami ku leh shirkado shidaal oo qaarkood ku calaamadaysan inay boob shidaal ka sameeyeen dalal ay dagaal ka socdaan si gaara shirkadda Som Oil and Gas oo Soomaaliya kale damac ay ku doonayso inay ku boobto shidaalka Soomaaliya ayuu Xasan Cali Khayre ka mid yahay dadka saamiga ku leh ma jira saaxiibo siyaasadeed oo uu sameystay oo saameyn muuqata ku leh siyaasadda dalka kuwaas oo maanta ku garabsiin kara ololihiisa doorashada gacanna kuma hayo dowlad goboleedyadii uu qaarkood awoodda ciidan ku dhisay kasoo kow dhaliilaha iyo eedeymaha Khayre loo jeedinaya haddana waa mid ka mid ah hogaamiyayaasha ku suntan horumarinta adeegyada dowladnimo ee loo qabta bulshada waxaana lagu xusuustaa waxqabad uu ka mid ahaa
kobcinta dhaqaalaha, dib u habeynta ciidanka xoogga dalka iyo soo deynta maxaabiistii Soomaalida ahayd ee ku xirneed dalka dibadiisa.